السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu mararka qaarkood aragnaa cuncun ku dhaca indhaha kaasoo keena in dadka qaarkood ay si aad u xoqaan indhaha arrintaasoo iyaduna keenta in midabka indhuhu ay isu beddelaan casaan waxaana cuncunka indhaha ku yimaada keeni kara waxyaabo kala duwan waxaana ka mid ah waxyaabaha keeni kara nooc ka mid ah xasaasiyadda oo qofku uu dareemo waxaana lagula taliyaa qofka dareema xasaasiyadda noocaasa inuu iskaga fogaado waxyaabaha ku keenaya xasaasiyadda soo jeedka xad dhaafka oo qofku uu caadaysto ayaa isaguna cilada noocana ku keeni kara indhaha daawashada faraha badan ee tiifiyada iyo waxa la midka ah oo qofku muddo dheer uu daawado iyadoo indhihiisu aanay sameynaynin wax dhaqdhaqaaqa ayaa iyaduna keeni karta arrintan igfashan ku dhaca indhaha iyo hareerahooda ayaa iyaduna keenta arrintan inuu qofku si khaldan u taabto ama ugu dhowaado waxyaabo kiimika ah oo aan la rabin in loo dhowaado ayaa iyaduna keenta arrinta noocana waxaana lagula taliyaa qofka ay haysata arrintani inaanu dhayalsan ee si degdega uula xidhiidha dhakhtar si wax looga qabto inta arrintu ay dhowdahay gabagabadiina ilaahay waxaynu weydiisanaynaa caafimaad taam ah وتشكو الذنوب وأنت الذنوب وفي كل يوم تبوء بذنب وعيب يضاف لباقي العيوب